ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب قال هذا أهل الكتاب كي النصارى يا مشركين ما تعلبوا ألا لي أن ينزل عليكم من خير إن خير ليجيكو صدقوا أو هناك هشام أو برادودان ما تعلى وناقو حقو كيمنا يا من ربكم إنو ربكين إذن وناتشيو أو إذن قرحيو إذن تبانتابيو قال ما تعلى أنا واحد لذا بيش عالم كالا يرادايو يدين الداد هيسا وناقيني كشاقيسا دبدا إنك الرعدا وينو هرم مرينيسا إنك الدبقي كين وين سياسي مران إيه كين أغو يربا ما أنت قالوا أيا لغو حدي أوركي ولا دبقلا قالوا محي ربان واكن ودوا لو تكفرون كما كفروا وحي تشعلي سيدي أقالوا بين إنا أقالوا دان فتكونون سواء حتى ما تشعلا إسلام كان وحكا قاتا قال هذا وحكا قاتا دحدحات شوقة حيد تشعلي بينك تشعلي هل كانت شوق ما تشعلا كسو وذا بحبالك إن باكوها دي إن يرباكوها دي مالنت الدين تادا كبحضو أي رالي كان نقونيان بارك الله فيكم آدين في تجنان آيات كقرآن كآه إيه إلهي كقول هذا لايو قلبي جاga همرة وحن كجبحية إنه قال خلافنا إسك إلى للنعيدهود يهب دقندودا وحايدين تنو كتل مانتي تمييز المسلمين عن غيرهم مسلمكو ما همد قال سوء كيسية ما همد قات أفكاره ده وانن راعة مبادئ إلهي سبحانه وتعالى دبقله وحن كجبحية قفكو سوء كيسينا يا هل كاوفيرس وقف قيمة له علمي وبداي عقون وبداي عقل انتبه بل قال هذا إلهي سبحانه وتعالى صدوقها الله وفيرس ألا وعيري أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ما وحى لينيسان قالوا إني فقه يفهم يعقلي يعلم ليين إنهم إلا كالأنعام ما لها واسدا ما يران كوكله واسدا حوله كله أي الله سبحانه وتعالى تلماميا هذا إلهي باكله هذا لايه ما هذا اللي كله نوالا وكدافت كشرة قفنا ما دبقله كم ضيدا إن كستان ما أنت مودين لقوبة ضينا يجي وينك والاني درجع عن أيولها علامات يسمى جونية darkii jeexjeexnaayay daldaloolay ee cawradaada dabada dhigayay maanta waa dharka ugu qaalisan Allah subhanahu wa ta'ala aayadan ku tilmaamaya gaalo waxaasay buunbuuninayaan ka dhigayaan qurux iyo wanaag am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun mayna fiqiyo fahan iyo aqoon leeyin baa u maleynaysan inhum illa kallan'aam wasida xoolaha kale bal hum adallu sabila dariiqahaana xoolaha iyaga kaliita xoolaha gaalo iyaga kaliita Allah subhanahu wa ta'ala tilmaamaya sidee uga liitaan waxay uga liitaan waxaanay xooluhu ka yaqiiqsoodaan ka sariigtaan ayay maanta sameynayaan dhadig u tagaaya iyo lablab u tagaaya waa bal hum adallu sabila arkimaysid xoolaheena oo dhadig intu u tago ku xaaje gudanaya iyagina waabay ku faanayaanba dadka nooca ah inayna ku dayana ma waa aayad qaraweyn waaqiceena ku dulgeynaysa ku qalbigaaga gilgilaysa tilmaamaysa inaana dadka nooca ah ee xoolaha ka liita inaan la dabagelin iskana ilaali qolooyin baa waxay yiraahdaan walaqad karramna bani aadama war ilaahay ibn aadanka miyaanu karaamayn ha laakiin waxa ka dambeeya inna akramakum inda allahi atqaakum qofka ilaahay ku xiran ee ilaahay rumeeyay ayaa wanaag iyo milga iyo sharaf leh kaasa la oranay hebel baa dhintay caalamka dhalinyarada xalay dhammaan social media waxa haystay nin gaala oo baqtiyay oo la lahaa waa hebel waa haliyay laacib booha ninkaas la qaybay oo la dhigay oo la tafatiray oo xalay oo dhan la lahaa waan tacsiyadayn hada waa gaal ma quuro in la iraahdo waa dhintay in la iraahdo baqti nabiga kaleey salaatu wasalaam sidoo tilmaamay idan dadka nooca ah
xoolaha kaliita inaynu buunbuunino oo wanaajino oo ka dhigna haliyeeyo dhalinyaradeenna jecelaysiina sax maaha markale Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ma yawaddu alladheena kafaru min ahli alkitabi wala almushrikeena an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum balaayadan fiirso wa ayat quraan qasabay kugu tay inaad rumayso hadaad iimaan leedahay ma yawaddu alladheena kafaru min ahli alkitab قالada ahlul kitaabka iyo nasaarada iyo mushrikiintu ma jecelabu alla leey an yunzala alaykum min khayrin in khayr laydinku soo dago oo wanaag heshaan oo baraadowdaan ma jecela wanaag waxa ka imanaya min rabbikum inuu rabbigiin idin wanaajiyo oo uu idin qurxiyo idin tabantaabiyo gaala ma jecela adna waxa leedahay beesha caalamka la yiraahdayo iyadayna daadahaysaa wanaagina ka shaqaysaa dabada inaga riixdaa wayna horumarinaysaa inaga dabagee keenna weyne siyaasiga maran iyo keenna ugu yarba maanta gaalo ayaa lagu xidhay awrkii oo la daba gala allana halkaas uu ka taagay wanaag in ilaahay idin wanaajiyo iyaga ma waxa la yiraahdaa xaasidka ka ugu xunay waxa weey ka xoolihiisa ka baqayla wali xaasidnimadiisu way dhowdi laakiin ka ilaahada hebel xoolahayga siin maayo xoolo kalena yaana la siinin waa xaasidnimo halkii ugu dambeysay alla wuxuu leeyahay ma yawaddu alladheena kafaru min ahli alkitabi wala almushrikeen yahuuda iyo nasaaradu ma jecela an yunzala alaykum min khayrin wanaag iyo baraara iyo khayrin alla idinku soo dajiyo min rabbikum ma jecela in iyagu idin siiyaan hadalkeeda daa oo tan ay siinayaan waa maxay ay bixinayaan waa in ay diintaada ka soo duufsadaan ay ka saaraan weeye maxay rabaan hadaba gaalo ilaahay oo sidana tidhe gaalo maxay rabaan waa kan waddu law takfuruna kama kafaru waxay jeceliin siday u gaaloobeen ina u gaalowdaan fatakununa sawaa hatta ma jecla islaamkana wax ka qaata gaaladana wax ka qaata dhaxdhaxaad jooga xaydha jeceli beerka jeceli halka joog ma jecla kasoo wada baxbal in baa ku hadhay in yar baa ku hadhay maalinta diintaada ka baxdo ayay raali ka noqonayaan marka barakallahu fiikum aadaynu fiijignaano aayaadka quraanka ah ee ilaahay kugu la hadlaayo qalbigaaga hamaro waxaan kaga baxaya ya ayyuhalladheena aamanu dadkii ilaahay rumeeyay ee rasuulka raacayo adaa lagu la hadlaya in tudiicu alladheena kafaru hada gaalada gaaloobay raacdaan يردوكم على أعقابكم عربهن يقمدهن دبين كعلينيان فتنقلبوا خاسرين دي نوعا نغنيسان قار دبو دعا أو خسارة أو هاقردامة هلا أيان نغنيسان لن يردين ما انتو فيرسو waxay ku fikirayaan iyo waxa ka soo butaacay iyo waxay la nooliyeen iyo aragtidooda Usama ibn Zayd maalintu ciidanka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam hogaaminayay 12 jir buu ahaa maantana 30 jirkeen ayaa hebel iyo kana badiyay iyo kana kan keenay iyo keer ku jira hadaf male aaraam male waxa laga sugaya waa cunid iyo cabid iyo dhaqasho iyo maxay hadafkaaguna kaama inaad iyaga u yeedho oo hagaajiso oo wanaaga ku darqabato ayaa la rabaa bal fasaadkoodii iyo falxumadoodii سير هذا وعكر محينو قبنا ده هل كرينو ما أنت تاجني تناينو كملنا ولله سبحانه وتعالى إنه كعب صنّو حضر كيسا رجل اللي يرى هل كوكتو كلها وإلهي عابد لها سروال كيسو للدالة دعية مربريه ساقاون مرو فيدية مركربو قاضية حال كيسو بوا سروالك إنه مرنا كرو قاضو مرنا ودتشيو حودي دينو قرحيو دركي النبي عليه الصلاة والسلام قاتو إن أنتي ayaa halkii ugu quruxda badnayd waxaan la yaaba waxa la yiri Soomaali waxa la idin qabanaya hablaha ta ugu dhigta badan leh ee ugu dheeha fiican ee ugu quruxda badan ayaanu qabanayna deedna inan kasta bartii ay u quruxda badnayd bay qaawis ay banaanka dhigtay xijaab hadalkeeda daa idan siyar baynu u siqaynaa waxaad moodaa inaynu sii milmayno barakallahu fiikum ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu ka cabsano ummadihi inaga horeeyay wixii lagu halaagay oo dhan maanta waa joogaa hadii yahuuda lagu halaagay inay rasuulka beeniyeen
beeninta rasuulka inaga waxay noo raacaa in rasuulkeena dhexdeena lagu caayo. qowm luud haddii inta kor loo qaaday samada la geeyey dhulka laga soo shiiday maanta hargeysay joogaan rag daba maala ah oo qowm luud wixii lagu halaagay samaynay. hadday qowm hore waxaan aqriyay maalin suuratu shucaraa qowmkii dhammaan la halaagay wixii lagu halaagay oo dhan maanta hargeysay way joogaan way yaalaan xaraf kama maqna xaq la beeniyay kufri diin daro xumaan fasaad. barakallahu fiikum ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu ka cabsano oo qofku qiimo wuxuu ku leeyahay diintiisa diinteena aynu ilaashano xaq Allahayna garansiiyo xumaano dhan Allahayna weydaariyo qaar hagaaga oo hanuuna oo hadiga nabiga qabsada Allahayna ga dhigo.